maanta halkan waxa fadhiya gudidii joogtada ahayd ee golaha guurta Jamhuuriyadda Soomaaliland oo matalaysa goluhu markuu fasaxa galo maanta halkan waxaan u soo jeedinaynaa tacsi tiiraanya leh dadka reer awdal hadday waayeel yihiin odayaal yihiin dhalinyaro yihiin haween yihiin maxaan ku dhahdaa aqoon-yahan yihiin culimo yihiin waxaan u soo jeedinaynaa tacsi tiiraanya leh haddaanu nahay gudida joogtada ee golaha guurta Jamhuuriyadda Soomaaliland oo matalaysa golaweynihii waxaanu leenahay shilka dhacay hawsha dhacday ilaahay dhamaantiin samriye iimaan haydinka siiyo qarankana ha ka siiyo dhamaanteena ilaahay samriye iimaan haydinka siiyo waxaan leeyahay dagaal wiil baa ku dhintay wiilku ma dhasho inta inaga dhimatay hadii la yiraahdo in ilaahay samriye iimaan naga siiyo ayaan idin soo jeedinaynaa haddaan nahay gudida joogtada golaha guurta Jamhuuriyadda Soomaaliland taasi waa taa inta dhaawacantayna ilaahay inuu boogadhayo oo ilaahay caafimaad sareecana inoo siiya ayaanu iyadana ku ducaynaynaa taasi waa taa gobolka awdal waa gobolkii guusha Soomaaliland waa gobolkii Soomaaliland ay ka soo unkantay didibadeedu ay isku taageen walaalayaal waxaan idin soo jeedinaynaa haddaan nahay gudida joogtada golaha guurta Jamhuuriyadda Soomaaliland in aan nabadda inta ina gaadhay inaynu ka soo waaqsan karno maaha dhalinyarada urdinka ay naga dhimatay walaalayaal waxaan idin soo jeedinaynaa maadaama gobolkii nabadda ku suntanaaye gobolada Soomaaliland dhan maray aad tihiin ee nabadda salka u dhigay inaan cadow aynaan maqal shisheeye Soomaaliland waxaan leeyahay walaalayaal waariyaan ciidan bay naga dhimanine hal gurmudo hadday culimo tahay iyo hadday madax dhaqameed tahay iyo hadday aqoon-yahan tahay iyo hadday maxaan ku dhahdaa cid kasta oo gobolka ka soo jeediya Soomaaliland ba tahay war arinta dhulka hala dhigo oo arintaasi hal isku soo gaadho tacsida iyo nabadgelyada gudoomiyihii hore guurtida ahaa ayaan ku raacsanahay 100% in yaroo kale uma yara iftiiminaya haddii alla yidhaahdo calanka Soomaaliland idinka keenay boorama lagu sameeyay oo ogtii ninkii sameeyay calanka shirkii la isugu yimina ee Soomaaliland lagu idinka lahaa war maanta dumineen dadkiini dawladda idinku aad lisateen duminina waxaanu idin leenahay haddaan golaha guurtida nahay cid kastaaba cid magacoodo laakiin guurtidu waa asal guurtii way soo socotaa guurtidii oo dhammaan way soo socotaa waanu idin soo soconnaa waxa weeye martina waanu idin ka nahay waxaanu leeyahay idinku soo gaadhnay dib dambayaan wax idinkaga dhiman marka horeysa dadka ay naga dhintay ee ku dhintay mudaharaadkii shalay toole ayaan tacsi u diraynaa sida gudoomiyaha gudiga joogtada uu sheegay waxaan leenahay intii naga dhimatay Allah u naxariisto inta dhaawacana ilaahay caafimaad degdeg ah Allah inoo siiyo taa tacsida saasan maartay ugu taageersanay gudoomiyaha inta markaan ka soo gudbo baaq nabadeed baan diraynaa oo u dirayno gobolka awdal iyo gobolka Seleelba waxaan leenahay walaalayaal nabadda gobolka awdal waa isaga ku suntan oo keenay nabadda Soomaaliland dawladnimada Soomaaliland oo halkii lagu dhisay lagu aasaasay waana gobolkii aqoonta iyo xadaaradda maanta inay dhibaato inta leey ka dhacdo qadar Ilaahay bay ahayd oo kullu Ilaahay baa qadaray oo qadar Ilaahay bay wax walba ku dhacaan laakiin aanada tayba dabadood la qabay
cid dambeeyay naga dhimanin dhalinyaradeennu yay naga dhimanin waayeelku ha shaqeeyo caqligu ha shaqeeyo culimadu ha shaqeyso salaadiintu ha shaqeyso waxgaradka iyo aqoonyaankuna ha shaqeeyaan oo yaan cid dambe naga dhimanin gobolkana wuxuu ku suntan yahay gobolkii Somaliland lidabada loogu taagay marka walaalayaal aanada taybay dabad la qabay nabadda ayaan naas la nuugale nabadda ayaan macaan nabadgelyada inoo adkeeya inoo ilaaliya waayeelka iyo dadka culimada iyo salaadiintana ha la maqlo insha Allah sida maartay xildhibaanada iga horeeyay oo sheegeen ayaan anagu ku taageersanahay dhamaanteen aan ku taageersanahay hadaan guddiga joogtada nahay insha Allah hadii la ka dhigo aad baan dhamaantiinba idinka tacsiyadeynaa cidii naga dhimatay mar labaad iyo mar kalaba inta xanuunsanaysa dhaawacantayna Allah inoo caafiyo salaamu calaykum waraxmatullaahi